toddobadii Juun ee sanadkan ayaa la soo xiray dable xoogga Xaashi Cali Maxamuud oo loo haysto dilka Allaha u naxariistay Xasan Axmed Abuukar, Xuseen Axmed Abuukar iyo Cabdulaahi Axmed Abuukar oo ahaa walaalo dilkaas oo ka dhacay degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda Gumrey ka soo horjeedka xarunta xirta Xaaji Daa'uud taariikhdu markay ahayd 17kii bishii lixaad ee sanadkii 2018. xilligaas ayuu isaga baxsaday goobta uu dilku ka geystay eedeysanaha waxa ayna ciidamada amniga ee Soomaaliya ay ku qaadatay ayaa lagu yiri war maxkamadda ka soo baxay soo qabashadiisa sanad iyo dhowr cisho 15kii bishii toddobaad ee sanadkan ayay ku soo wareegtay xafiiska xeer ilaalinta eedeysanaha waxaana xilligaas ay garsoorayaashu ay weydiisteen in markaasi loo gudbiyo xabsiga garsuga ahaan. xafiiska xeer ilaalinta ayaa isku howlay baarista kiiska uu eedeysanaha ka yahay dable xoogga Xaashi Cali Maxamuud. baaritaan dheer kadib waxa ay codsadeen in markaasi la mudeeyo dhageysiga dacwad qaadista. 26kii bishii tagtay ayaa la isugu yimid fadhigii koowaad ee dhageysiga dacwadda waxa ayna xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ka hor sheegeen waa in uu jiray muran dhuleed oo ay sababsadeen marxuumiinta balse garsoorayaasha ayaa go'aan ku gaaray in lala yimaado caddeymo intaasi ka badan. mar kale ayaa loo ballamay dhageysiga dacwadda eedeysanaha dable waa xoogga Xaashi Cali Maxamuud 2 bishan waxaana xafiiska xeer ilaalinta ay la yimaadeen caddeymo dheeri ah oo ay ka mid yihiin muwaadiniin ka shaqaynayay geerishka ay mashaqadu ay ka dhacday kuwaas oo ku marag furay eedeysanaha sheegashadiisa ah in markaasi muran dhuleed kala dhexeeyo marxuumiinta islamarkaana aysan waxba ka jirin. sawirka marxuumiinta, warqadda caddaynta dhimashada iyo sidoo kale baarihii kiiska intaba. dhamme muumin xuseen cabdulle ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku dooday in eedeysanaha uu nolosha u aqoonsaday isaga oo miir qaba 3 walaalo ah oo midkoodna uusan hubaysnayn. waxaa sidoo kale eedeysanaha uu baxay dilka marxuumiinta in uu geysto xaafadda Afisyooni ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir isagoo ugu tegay cirifka looga baxo magaalada oo ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. waxyaabaha kale ee cajiibka ah oo ay markhaatiyaasha ay ka marag fureen waxaa ka mid ah in mid ka mid ah marxuumiinta oo dhaawac ahaan u baxsaday fogaan uu markaasi u dhammaystiray eedeysanaha oo maxkamadda hortaagan ayaa sidoo kale waxa uu markaasi iibsaday hantidii dowladda ay ku aamintay isaga oo markaasi muddo gambad ka ahaa hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya sida warka maxkamadda ka soo baxay lagu yiri. qareenka eedeysanaha ayaa codsaday in ay bixiyaan magta marxuumka maadaama eedeysanaha ay reer wadaag ahaayeen marxuumiinta uu dilay. ugu dambeyn garsoorayaasha ayaa go'aan ku gaaray in dil lagu xukumo Xaashi Cali Maxamuud oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah Xasan Axmed Abuukar, Xuseen Axmed Abuukar iyo sidoo kale Cabdulaahi Axmed Abuukar oo ahaa walaalo sida uu markaasi sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. go'aanka maxkamadda waxaa ka furan ayaa lagu yiri racfaan ku eg 30 bishan xukunka kadib.